wararkana waxaa ka mid ah salaadiin oday dhaqameedyo ka soo jeedo gobolka Gabiley oo maanta shir jiraay si wada jir ah ugu qabtay magaalada Gabiley ayaa waxa ay si adag u daadurayeen isla markaasina ku tilmaameen mid talaabooyin baalmarshan sharciga qaranka Soomaaliland gooriyay ay dhawaan ku dhawaaqeen qaar ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliland shirkan jiraay oo ka dhacay barxadda weyn ee hotel askari ee magaalada Gabiley ayaa oday dhaqameedyada iyo salaadiinta kala duwan waxa hadalkoogii ka mid ahaa inta qulsuuq kulban inuu soo qaato ka yaba waxaan leeyahay rag la baxay yiri waxaanu nahay golaha wada tashiga iyo badbaadada waxaan leeyahay golahaasi waa golo sharci darro maanta la looma baahna inagoo maanta halka aynu marano aynu arkano oo maanta aynu wada hadal ku jirno Soomaaliya oo aan maanta qarannimadeennii aan doonayno in la ismuujino inaan xagaldaac muujino oo kolba rag maartay danaysanaya ay doonaan inay ku guuraan shacabka reer Soomaaliland anagu oo madax dhaqameed reer Gabiley oo kam mid ahay oqaasha gobolka Gabiley iyo siyaasi dhalinyar iyo waayeel garanay oo dawladda Ilaahayna inala qabtay nabadgelyadeediina aan halanay waxaan leeyahay war maanta arqalad uma baahna wax kale oo garab eriyana uma baahna shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay نسياسي وحلوة أو تبي إنه ولا صار